السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إله baa mahad leh laakiin ilaahay kadib waxaan rabaa inaan ku mahad celiyo sida aad maaragtay aad ummadda Soomaaliyeed su'aalaha diiniga iyo su'aalaha kale oo maadiga kulli aad ugu jawaabto. جزاك الله خير أخي، بارك الله فيك. Su'aasha hadda aan qabo waxaa weeye baryahan waa aragtay magaaladii Muqdisho dowladdu waxay maaragtay ka kicinaysaa dadkii guryihii danta guud ha laga kiciya sida looga kicinaa si maaragtay bini'aadanimada ku saabsan ku habboon ama maaragtay bini'aadanimada ku jirta ma aha 9 saac habeenimo 10 saac habeenimo in dadka guryahooda loogu dhaco marka arrimaha noocaas maaragtay dadka noocaas loo galaa iyo dadkii oo maaragtay ama qori lagu garaaca ama ul lagu garaaca ama dad waayeela dad xanuunsan dad ilmo ah diinta maxay ka qabtaa maxaa maaragtay arrintaas maxay diinta ka qabtaa maxaana ku soo kordhinaysaa oo dowladda xaggeeda iyo dadkiiba aa leedahay. بارك الله فيك أخي. حقيقة إلهي ظلمك وحرمي نفتي حرم وكدغي دولة مسؤولية إذا إلهي قيامها وويدنا دتك مسؤولين تا كان أوصل رأي مدحوينها كان أوصل أقاسمها قيامها إلهي سبحانه وتعالى يوم يقوم ناس لرب العالمين ما أنت إلهي هرتسل استاجدونا ولا ويددونا قف كستو الظلميين وإلهي وكرقاد دونه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان عنده مظلمة من أخيه فليتحلله الآن وردتك الظلمين حتى عفس كد البضع هذيك ما أنت يوم القيامة وكش الله إنسان حق أسوان يرجع قاد دونه سأصدرات الدولة المسؤولية ذاك ومدى وهذا دولة الآن ونفتق الدين تم أقوله إني كلا دمبين إجرت أقول وحوى ناكسن لبا دولة ولا كربا مركو رئيسو دتك إني لمريسو مسلم دتك مساكين تا نين أنت سنة دكنا أنت سنة ميل دكنا وإنه هرت مركو رئيس أيضا مسؤول كهلوي الدنيا نقفك الوضع عقابة ما حمش ودكنيت ما أنت هذا تري دنجود أيام ناش أي اللي سمينا يا قدم كود وحدتك كعينيس وهرتوا أنا ميل وسميسه aad cilaanisaa aad dadkan u sheegtaa maxaa yeelay beentaa badatay xumaanta faafaysaa badatay waa inay dadka mas-uuliyiinta ay soo istaagaan ay yidhaahaa hebel iyo hebel iyo hebel guryaha laga kiciyey meeshaas iyo halkaas la geeyey oo dadka loo sheegaa dadkana la keenaa oo la yidhaaho anagaani la rarayno anagaani wax nii qabanayno laakiin dadka in oo la cadaadiya ilaahay subxana watacaala ma ogolo xataa xoolaha u diiday islaamka xoolaha ayaa la diiday in la iska garaaco oo la tumo iska dhaafe qof muslim in qoray iyo wax lagu garaaca oo ama qof bini aadan ah diintan ma ogolo darbigana iyo dilkaas ma banaano nidaam ay leedahay shuruuca jirto wadanka shuruuc Soomaalida mushkilada taal waxa way Soomaalida sida aniga u qiimeeyay akhi ilaahay khayr ku siiyo waxa way ninka dhaalimka asal dhinac madluum uu ka yahay waxa laga yaabaa dadkaas iyo naftooda inay isdulminayaan dad iyo ku dhex jiray inay ku dhex jiraan waa mushkilo waa marka nin waxa arkaysaa intan dhaalimka ah wax dulminaya intan madluumka laga dulminaya arkaysaa Soomaalida saasi u badan yihiin marka laakiin mas'uuliyadda dadka qaaday ayaa ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri waxyaabaha qiyaamaha oo ilaahay weydiinaya waxa kamid ah kullukum raa'in wa kullukum mas'uul an ra'iyatihi ninka soo raaci la weydiin doona agaasimaha ahaado wasiirha ahaado fal imaamu raaci oo ka bilaabay nabi kaleey salaam dadka madaxda ah wariye iska saarsan guriyooda ku jiraan qolooyinkan waxay sameynayaan inay ogaan laga yaabo laakiin hadhow kama fujinaysa aniga ma ogeyn waa inay mutaabac ku sameeyaan sidii Umar uu sameeyay jiray maxaa la qabtay maxaa la yeelay dilkaas ma banaano dadkaas in loo xayal qaybta kale waxaan leeyahay sidoo kale dawladdu waxa laga rabaa ballanka ay qaadinay fuliso muslimka waxa xalaqooyin ka soo hadalna ballanka in la fuliyo dan guud in la sameeyo oo arintaas dan guud loo dhigo hadii dawladdu wasaaradda la jirto wasaaradda loo dhiso laakiin maanta in berri la isku tuhmaadana qof masaakiin laga qaado oo masaakiinka dad kale la siiyo ama dad tun weyn oo ganacsada la siiyo dulmiga oo ilaahay qiyaamaha waa weydiina hadana waxa weey hadii guru beec loo rabane تندر هالجليو دتك إنها أترتمان ولذلك دينتي محي قبتها شفعة وحلها الجار بحقه شفعة ساعة النبي عليه الصلاة والسلام وحويري هدي الدلا بقف الشركية هين أما قف مال وحكوا لا هاي مركي لجدا مش أصجع أي وهرة إنه قد دت أجرب له مكيني كارو مركا أيق لفتو إن لجدا هدي لله هاي ولا الإساء وماشي من العدد دي ومقالة وناجي ذي هنا دولة ما دام لولك إلا هذا هي إذا كمسؤول تهاي تندر هالجليو بيع عصوي ونهذا هذا عضو إنك قاته مركا سؤال قرته لكن واحد له سوسيسنا نينك دولك قصو النبي عليه الصلاة والسلام قطعة أوجو يري أن لهن دولك ولذلك ولا يسكوا عبادة صومالي حتى لم دولا له عذابه يا محيا نينك دول دعيا وحوم لا يا وحسلي دولة اللي هلا صار أسان دعيا كنعسي هذا ودنك وح قرصي
oo ummadda qarribay ganacsida ugu badan war ilaahay ka cabsada oo ummadda haddaad wax qabanaysaan canshuurta la iska bixi dawladda iyada dawladda dhismaysa laakiin canshuurtan inay ku galladeystaan rabaan dawladda ay yiraahdeen anaga wax ku qabanay tuks in looga qaaday rabaan hadhowna waxay rabaan walidaalika Soomaalida dulmigoodu waa faafay waxaan leeyahay war anaga asku turno dawladda mas'uuliyadda kowna ida qaadayso waxa la rabaa dadkaas masaakiinta ida ka mas'uula inay xal u keento dadkan waxa leeyahay wadankiina wixii wanaagiisa ah idinkana ha iska duminina waxay wadanka dawladda ama socon karo ha iska duminina wixii aad rabtaan nidaam ku qaata laakiin maanta dhan waxa arkaysaa nin cabaadahay oo suuq daalima arkaysaa waa aragna TV-da nin dan kale oo leeyahay waa iska qaylinaya war ilaahay wuxuu rabaa kaliya arsi wax la dhahay arsi walidaalika waxaan leeyahay hala fariisto ganacsatada ugu muhiimsan oo dhees anaga gadanayna war u turo masaakiin waxaan sheegnay ganacsatada gajaaj ahay maalka ma dhargaan laakiin ummaddu uma naxariistaan waxay siinayaan waxay rabaan zaka inay u xisaabaan war xuquuqan lagu leeyahay inta zaka bixin horta xuquuqda oo aad muwaadin ku tihiin oo wax kasta ku qaadateen oo wax kasta ku maamushaan waa ina ilaahay kaga baqdaan walidaalika waxaan leeyahay dawladda mas'uuliyadda 1 iyo 2 iyo 3 ku dhacaysa iyo shacbigu la doonayo inay waxooda si nidaam ah oo xaq ay ku raastaan hadii ay xaq ay lahayn xaq naftooda hadii xaq daro wax ku qaataan oo waxay ay lahayn ogyiin ay dhahin waa leenahay dhahay oo warqad been u soo subsadeen ilaahay intay laga qaada dawladda inay ka qaada urun intii qiyaamaha laga qaada lahay xuquuqdaas oo ummadda leh maxay yeelay maalka dawladda loo sheegay maal ummadna leedahay dawladda kaligeed ma laha dawladda shacbiga kamid tahay walidaalika maalkaas ikhtilaas la dhahaa sarqa xataa ma maxay yeelay xaqiiga ku jiro dhulkaas oo wasaaradda ka dhisan xaqaaga ku jiro nin kasto xaqiisa ku jiro marka nin xaq badan qaatay wax sahlan ma aha oo hatta tacziir oo imaamka leeyahay inuu qofka wax kasta la xukumi karo marka waxaan leeyahay fitanka dhulku waa batay aad u batay waa ummadii waa isku dhibtootay dawladda laakiin mas'uuliyadda ku ida qaadayso waxaan leeyahay war ilaahay kaga cabsada dadkaas ilaahay kaga cabsada wax u sameeyay hadday diidaan ay dhahan anagu wax la siiyay inkirayaan dadku u bandhigo waxa tiran waxaan siinay ayaga diidan dadka loo cadeeyo laakiin waxaan la isku dhex qasay xaq iyo baadilka anaga dhan safiin isla saaran anaga dhan isla duumeyn ilaahay xaq hanu tus dhamaanteen barakallahu fiik